maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waama muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waama kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar oo kaga hadlayno booqashadii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso oo ku yimid dalkani Djibouti kulamadii gaargaarka uu la yeeshay madaxda dalka qaarkood iyo waliba maayarka caasimadda Djibouti iyo waliba shirkii wadamada islaamka caasimadahooda oo kaga qayb galay Djibouti qodobadaas oo dhan ayaad barnaamijka kula socon doontaan inta uu socdo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo booqasho ku yimid dalkani Djibouti kadib casuumaad uu ka helay dhigiisa dalkani Djibouti Faadimo Cawaale Cismaan ayaa waxa caasimadda Djibouti loogu sameeyay soo dhaweyn aad u qiimo badan gudoomiyaha ayaa intaa kadib waxa uu ka qayb galay shirka golaha maamul ee caasimadaha islaamka oo ka dhacay hotelka Kambiska ee dalkani Djibouti shirkaasi iyo ka qaybgalkii gudoomiyaha waxyaabihii looga hadlay waxa kamid ahaa shirka golaha maamul ee caasimadaha wadamada islaamka oo ka furmay hotelka Kambiska caasimada dalkani Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ka soo qayb galay maayarada wadamada islaamka qaybo badan oo kamid ah waxaana kulankaas furay ra'iisul wasaaraha dalkani Djibouti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo halkaas soo dhaweyn ugu muujiyay guud ahaan madaxdii kala duwanaa ee shirkaasi ka soo qayb galay shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso iyo wafdi ballaaran oo ay kamid ahayd gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir oo hogaaminayay shirkan ayaa waxa muddadii uu socday looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay isku soo dhawaanshiyaha wadamada islaamka caasimadahooda ana ugu horeyn goobtaasi khudbad ka jeedisay Faadimo Cawaale Cismaan oo iyadu ah maayarka caasimada dalkani Djibouti waxayna sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay shirkan iyada oo tilmaamtay in shirkan uu yahay mid wax weyn ka bedeli doono marka loo eego howlaha isku xirka iyo horumarinta caasimadaha wadamada islaamka waxa sidoo kale kulankani ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay shirkani soo qaban qaabiyay maamulka caasimada dalkani Djibouti oo socon doona muddo 2 cisho ah ayaa waxaanu wareysanay ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan Djibouti joogno isla markaana duqa magaalada Djibouti Faadimo Cawaale Cismaan ay si heer sare ugu soo dhaweysay isla markaana anagoo ku xurmeynayna iyadana shirkan ay soo qaban qaabisay abaabulayso wadamada islaamka meeyaradooda inaan joogno sharaf weyn bay noo tahay garab istaagno meeyarada Faadimo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno shirkan isaga ah waxaan rajaynaynaa in anagana qayb ka noqon doono oo muhiim u ah bacdama ay shirgudoon loo doortay Faadimo annagana Soomaali hadanahay waan garab taaganahay marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan doonaynaa annaga magaalooyinka caasimadaha ah ee dalalka islaamku inay noqdaan kuwa xiriir dhow yeesha kuwa muxuu ahaa ka wada shaqeeya horumarkooda kuwa sidii caalamka kale muxuu loola tartami lahaana u istaaga marka waxaan sidoo kale wareysanay Faadimo Cawaale Cismaan oo iyaduna ah maayarka caasimada dalkani Djibouti marka maanta waxaan fursad anaga noo noqotay amba chance-kan aan helnay in caasimada lagu qabto Djibouti waa dadaalka madaxweynaha Alxaaji Ismaaciil Margele waxa kale oo anagu fursadan anagu ka faa'iideysanayna labadaas sanadood xilka haynayno mas'uulka sare ee organisationkan wax badan mashaariic badan baan insha Allah ka hirgelin doona haduu Ilaahay na gaarsiyo mashaariicdaasi oo ku salaysnaanaya qurxinta caasimadeena Djibouti alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaana la jooga maayaradii islaamka waxa fursadan qaaliga horta anagu aan siinayna meerka magaalada Beytul Qudus oo halkan la jooga oo aad iyo aad aan u hambalyeynayno isaga oo wadankiisa ma aragtay mashaakilaadku ay ka jiraan caasimada laakiin hadana jeclaystay inuu ma aragtay shirkan ka soo qayb galo waa markii ugu horeysay Djibouti lagu qabto shirkan kan la mid ah waxaana shirkan uu suurto galiyay hogaanka ururkaasi caasimadaha wadamada islaamka loo doorto Faadimo Cawaale Cismaan oo iyadu ah maayarka caasimada dalkani Djibouti waxaana goobtaasi hadiyado kala duwan lagu gudoonsiiyay madaxdii kala duwanaa ee ka socotay caasimadaha wadamada islaamka gudoomiyaha ayaa waxa uu maalinkii labaad ee booqashadiisa kulan la qaatay
taliyaha sare ee ciidamada gaashaandhigga dalkani Jabuuti General Sakariya Sheekh Ibraahim waxaa sidoo kale uu kulan la qaatay wasiirka difaaca ee dalkani Jabuuti mudane Cali Xasan Bahdoon gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa waxay maanta kulan la qaateen taliyaha sare ee ciidanka dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti General Sakariya Sheekh Ibraahim generaalka oo xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wafdiga oo hogaaminayay ayaa waxaa ku wehelinayay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Jabuuti Maxamed Cali Nuur iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Banaadir waxaana generaalku uga mahad celiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir dadaalka uu ugu jiro sidii Soomaaliya ay mar kale cagaha isugu taagi lahayd generaalka ayaa waxa uu uga warbixiyay howlaha ciidan ee Soomaaliya ay ka wadaan ciidamada hiil walaal ee ku sugan gobolka Hiiraan isaga oo tilmaamay in had iyo jeer Jamhuuriyadda Jabuuti ay u taagan tahay sidii Soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd intaa kadib ayaa wafdigii uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo weheliyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Jabuuti iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Banaadir waxay kulan la qaateen wasiirka difaaca ee dalkani Jabuuti mudane Cali Xasan Bahdoon wasiirka oo ku qaabilay xarunta wasaaradda difaaca ee dalkani Jabuuti waxayna ka wada hadleen xaaladaha guud ee labada wadan isagoo oo gudoomiyaha gobolka Banaadir uga warbixiyay wasiirka difaaca ee dalkani Jabuuti dadaalka ay wadaan iyo sida Soomaaliya ay doonayaan in loo soo celiyo bilicdii caasimadda iyo waliba nidaamkii kala dambeyntii wasiirka difaaca ayuu ku amaanay gudoomiyaha gobolka Banaadir ka qaybgalkiisii xafladii 1 Luulyo wafdigii uu hogaaminayay ee Soomaaliya yimid isagoo oo sidoo kalena ku amaanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo guud ahaanba madaxda dalka sida ay had iyo jeer Soomaaliya u garab taagan yihiin wasiirka difaaca mudane Cali Xasan Bahdoon ayaa ku booriyay gudoomiyaha gobolka Banaadir inay halka ka sii wadaan dadaalka ballaaran ee ku aadan bilic soo celinta amaan soo celinta iyo waliba dadaalka xooggan ay ugu jiraan sidii Soomaaliya ay mar kale dawladnimadeedii xoog lahayd ula soo noqon lahayd gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa intaa kadib waxa aanu weydiinay kulamadii kala duwanaa waxa maayarada iyo anigaba isla tagnay booqashooyin oo ka mid ah taliyaha xoogga dalka Jabuuti Zakariya oo runtii aan si wanaagsan noogu soo dhaweeyay xafiiskiisii isla markaana aan uga mahad celinay ciidamada Jabuuti hiil walaal sida ay naftooda iyo maalkooda ugu horayaan ummadda Soomaaliyeed sidii amni nabad uga soo qaadaan lahayd isagana wuxuu nooga sheekay sidii barismaadkii ciidanka xoogga dawladda Soomaaliyeed ahaan jirtay runtii aad iyo aad buu noogu soo dhaweeyay aad iyo aad baanan aniga iyo meeradaba runtii uga mahad celinay qaabilaadiisa sidoo kale waxa maanta isagana fursad u helnay oo aniga iyo meerada Faaduma aan booqanay xafiiska wasiirka gaashaandhigga ee dalka Jabuuti oo runtii isagana si heer sare noo soo dhaweeyay isla markaasna aan ka wada hadalnay xaaladda Muqdisho uga wareystay iyo sida horumarka ballaaran ee ka jira isla markaana wuxuu aad nooga tacsiyay qasaarihii jimcihii shacabka Soomaaliyeed kooxaha argagixisada la beegsadeen isagana waxaan ka wada hadalnay bal sidii aan uga mahad celinay dalka Jabuuti iyo kaalinta uu nagu leeyahay iyo sida aan mar walba madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeli dawladdiisii shacabka Jabuuti ba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa waxa uu kulan la qaatay maayarka caasimada dalkani Jabuuti Faaduma Cawaale Cismaan waxaana sidoo kale ku wehelinayay maayarka safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Jabuuti Maxamed Cali Nuur iyo waliba xubno kale oo ka tirsan diblomaasiyiinta safaaradda iyo waliba wafdigii uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Banaadir labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda labada caasimadood iyo guud ahaan labada dal iyagoo oo sidoo kale iska wareystay sidii iskaashi ballaaran ay u yeelan lahaayeen labada dhinac marka loo eego dhinacyada horumarka iyo bilic soo celinta labada caasimadood gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa intaa kadib waxa ay gudoonsiisay maayarka caasimada dalkani Jabuuti hadiyado qaali ah oo loogu talagalay marti sharafka aad loo qiimeynaya marka ay yimaadaan intaa kadib gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wafdigii uu hogaaminayay oo uu heliyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Jabuuti ayaa waxay u dhaqaaqeen dhinaca dugsiga tababarka Idris Faarax Abane oo nagaar loo yaqaan oo ku yaala duleedka caasimada dalkani Jabuuti markii halkaasi ay gaareen ayaa waxa loogu sameeyay soo dhaweyn aad u qiimo badan kadib waxa uu salaan ka qaatay cutub ciidan oo loogu talagalay soo dhaweynta gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso
gudoomiyaha ayaa intaa kadib waxay isgacan qaadeen taliyaha ciidamada waddankani Jabuuti gaashaanle sare Cabdullaahi Cabdi Faarax iyadoo sidoo kalena ay ku wehelinaysay maayarka caasimada dalkani Jabuuti. intaa kadib ayaa waxay u koorgaleen socdaal ay ku soo mareen habka ay u nool yihiin ciidamada Soomaalida ee tababarka uga soconaya dugsiga Idris Faarax Abane waxyaabaha ay bartaan iyo qaybaha kala duwan ay ku sugan yihiin. socdaalka gudoomiyaha ayaa waxa uu ahaa mid ahmiyad gaar ah u leh ciidamada goobtaasi ku sugnaa iyagoo aad ugu farxay la kulanka gudoomiyaha waxaana uu gudoomiyaha gobolka Banaadir la fahantiisu soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ciidamadaasi ay wax ku bartaan waxaana ciidamada ku sugan goobtaasi oo tiradoodu gaaraysa 212 askari ayaa waxa ay yihiin kuwa loo tababarayo qaybo kala duwan oo ku aadan howlaha booliska iyo qaabka casriga ah ee ciidamada booliska caalamka iminka u shaqeeyaan oo casharkoodii qaadanaya turjubaankoodina waa korneelka gadaashiina taagan ayaa turjubaan u ah waana 47 sarkaal 200 iyo waxa weeye 55 guud ahaan ciidanka waa 255 ugu dambeyntii ayaa gudoomiyaha waxa goobtaasi lagu gudoonsiiyay hadiyado qaali ah oo loogu talagalay marti sharafka dalkani Jabuuti markii ay yimaadaan. booqashada uu ku yimid gudoomiyaha gobolka Banaadir dalkani Jabuuti oo ahayd tii ugu horeysay tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay ayaa waxay ahayd booqasho si weyn loogu soo dhaweeyay guud ahaan caasimada dalkani Jabuuti iyadoo qaybaha kala duwan ee shacbiga dalkani Jabuutina ay aad ula dhacsanaayeen imaanshiyaha maayarka caasimada Muqdisho uu yimid dalkani Jabuuti. inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ah aynu kaga hadlaynay booqashada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ku yimid dalkani Jabuuti. tani intaynu ku kulmayna barnaamij kan lamid ah waa Mikaayil Cabdirashiid Barre oo barnaamijka halkan idinkaga soo jeedinaya isla markaana isku soo dubariday oo idin sida iyo nabadgelyo. tani intaynu ku kulmayno barnaamij kan lamid ah Somaliye maqal wakala sakeeye Somaliye maqal Somaliye maqal yesigu siduu yiri Somaliye maqal sanadadan intii dhimatay santooda lagu aasay siigada Somali ugu filan inta socotay waa hore Somali ugu filan sanadadan qaxootiga siliciyo dhibaatiyo intaas xariir la joogta Somali ugu filan